بسم الله الرحمن الرحيم. قصدا وقصة ولكن شيخ خالد الراشد وكسوري يمد كمد عجلديسة isagoo ka waramaya nin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku manaystay tooba iyo sababtii uu toobad keenay markii aynu aragnay ahmiyada ay u leedahay walaalahan Soomaaliyeed ayaan waxaan jeclaystay inaan u soo gudbino qisadan waxay ku saabsan tahay Salim Indole Cagoole waxaana ka hadlaya mawduuciisa abihi wuxuu yiri waxaan ahaa 30 jir markii ay xaaskaygu dhashay wiilkii ugu horeeyay caruurteeda wali waan xasuustaa habeenka waxaan kula caweynaya niman aan saaxiibanahay meel aan wada fariisano oo ku sheekeysano salbacaad ah waxay ahayd caweyn ay ka buuxda hadal maran oo faaruq ah aan macno lahayn bal xan iyo faalooyin xaraan ah iyo xikmad daro waxaan ahaa aniga mid badi ku qosliya ee ugu dheereeya xamashada dadka iyo xifaaleyntooda iyagoo intaas qoslaya waxaan xasuustaa habeenkaas inaan aad iyo aad uga qosliyay waxaan aad ugu fiicnaa jilada dadka kale waxaana awooday inaan bedelo codkayga si uu ugu ceedakaado qofkii aan doonaya inaan jilo jees ahaan haya waxaan ka dhigan jiray dheel iyo jeeskan iyo kaasi cidana igama nabadgelin xitaa saaxiibaday waxay dadka qaar bilaabeen inay iga fogaadaan si ay uga nabad galaan carabkayga waxaan xasuustaa inaan habeenkaasi ku dheelayay Abshir Indole oo ahaa maskiin tuugsada suuqa waxaana ka darneed taa inaan u dhigay jilaafo markaasoo turanturooday oo dhacay isagoo yaaban aan garanayn waxa uu yiraahdo markaasaan la dhacay qosol laga maqlay sayladii oo dhan waxaan u laabtay gurigaygii sida caadada ahayd goor dambe waxaana la kulmay xaaskaygii oo isugaysa waxay ku sugnayd xaalad lagu naxo waxay ku tiri cod murugaysan raashidow xagee jirtay waxaan iri anigoo ku dheeldheelaya xidiga maaris dabcan waxaan la caweynayay asxaabteedii waxaa ka muuqday xaaskayga daal iyo diif waxay tiri iyadoo ay ka qobanayaan indhaheeda ilmo raashid waan xanuunsanayaa waxaana i haysa fool waan dhali rabaa waxaa ku soo dhacay ilin dhabankeeda waxaan dareemay inaan dayacay reerkaygii waxay ahayd inaan daryeelo oo iska yareeyo dabad wareega iyo dib jirnimada weliba iyadoo ku jirta bishii 9aad waxaan u qaaday cisbitaalka si degdeg ah waxaa la geliyay qolka lagu dhaliyo xaamilooyinka waxay foolanaysay oo dareemaysay xanuunka foosha saacado badan waxaan sugaba dhalmadeeda oo ku sabro sugitaanka waxaa cuslaaday dhalideedii ilaa aan daalay markaasaan waxaan aaday gurigii waxaana uga tegay qoladii isbitaalka nambarka telefoonkayga inay isoo wacaan marka ay dhasho saacad kadib bay isoo waceen waxayna igu bishaareeyeen dhalashada Salim waxaan durba aaday isbitaalkii markii aan weydiiyay qolkeeda waxay iga dalbeen inaan u tago marka hore dhakhtaradii ka dhalisay xaaskayga waxaan iri dhakhtar ma almuhiim anigu waxaan rabaa inaan arko wiilkayga Salim waxay yiraahdeen marka hore u tag dhakhtarada waxaan u galay dhakhtaradii waxay yari ka hadashay musiibadaha iyo ku raali ahaanshada qadarka Ilaahay dabeeto waxay tiri wiilkaagu waxa ah xumaansho xagga indhihiisa waxaana muuqata inuu indhala yahay oo wax arkayn waxaan hoos u dhigay madaxaygii anigoo ka hortagaya ilma ku soo istaagtay indhahaygii waxaan soo xasuustay Abshir Indole iyo sidii aan u galay sidaas aad wax u gasho baa lagu galaa waxa iga soo bixi waayay hadalkii waan garan waayay waxaan iraahdo kadib waxaan soo xasuustay xaaskaygii iyo wiilkaygii markaasaan waxaan uga mahadceliyay dhakhtaradii wanaageeda waxaana u soo baxay inaan arko xaaskayga ma murugoon xaaskayga waxay ku raali ahayd qadarka iyo qadaha Ilaahay waxay ahayd raaliyad waxay in badan igu waanan jirtay inaan iska daayo ku dheeldheelida iyo ku jeesjeeska dadka waxay in badan ku celcelin jirtay ha haman oo waxa ka sheegin dadka
waxaan ka soo baxnay cisbitaalka waxaana wadanay la jirkeen saalim run ahaantii dan uma geli jirin wuxuu xaggayga ka ahaa sida inuusan gurigaba nagula noolayn markii aad uu u ooyo waxaan u carari jiray qolka fadhiga si aan u seexdo xaaskaygase aad bay u daryeeli jirtay oo u jeclayd aniguse inkastoo aan necbayn haddana waa isku kari waayey inaan jeclaado wuu weynaaday saalim wuxuuna bilaabay inuu gurguurto gurguurashadiisuna waxay lahayd la yaab waa sanad jirsaday wuxuuna isku dayey inuu socdo markuu 2 jir noqday waxaan noo soo baxay inuu sidoo kale cagoolo yahay waan igu sii cuslaaday naftayda waxay dhashay xaaskayga isaga ka dambow cumar iyo khaalid waxaa tegay sanooyin waa u weynaaday saalim sidoo kale ay weynaadeen walaalihii cumar iyo khaalid ma jeclaan jirin fadhiga guriga waxaan badi la soo caawin jiray asxaabtaydii baararka iyo muqaayadaha dhab ahaan waxaan ahaa waxa ay ku dheeldheelaan oo ku maadaystaan inkastoo aan moodayey inaan anigu iyaga ku dheeldheelayo oo ku maadaysto kama ayan quusan xaaskayga waanintayda waxay mar walba igu daceen jirtay hanuun iyo wanaagsanaan kama caroon jirin dhaqankayga xun ilaahay bayse ii baryi jirtay waxaase muruga gelin jiray wax badan marka ay aragto sida aan u fogeeyo saalim oo u soo dhoweeyo walaalihii khaalid iyo cumar saalim waa weynaaday waxaana ii kordhay hami xaggiisa ah ma aan diidin markii ay xaaskayga iga codsatay inaan ku soo qoro saalim dugsiga wax lagu baro dadka naafada ah ma dareemayn tegista sanadaha maalmahayga waxay ahaayeen isku mid shaqo hurdo cuntayn iyo caweyn maalin jumco ah waxaan soo toosay 5 saac subaxnimo waxay ahayd xaggayga goor hore waxaan lahaa casuumaad qade ah waan meertay oo labistay dharkaygii oo marsaday barafuun oo damcay inaan baxo waxaan sii maray qolkii fadhiga guriga waxaana i hakiyey muuqaalka saalim wuxuu u ooynayay si murugo iyo tiraanyo leh waa markii iigu horraysay oo aan arko oo u soo jeesto daneeyo saalim oo ooynaya tan iyo yaraantiisii 10 sano baa tagtay sidaas uma dhogan waxaan isku dayay inaan ismaweysiiyo waan sakari waayey waxaan maqlayay isagoo u yeeraya hooyadii anigoo ku jira qolka waan eegay oo u dhowaaday waxaan idhi saalim maxaad u ooyeysaa markii uu maqlay codkaygii wuxuu joojiyey oohintii markii uu dareemay dhowaanshahayga wuxuu bilaabay inuu labadiisii gacmood ee yaryaraa uu ku taabtaabsado hareerihiisa talow maxaa ku dhacay waxaan ogaaday inuu isku dayayo inuu iga dheeraado oo qolkiisa aado waa sida inuu i leeyahay ma hadda un baad i dareentay oo i xasuusatay xaggee jirtay 10kii sanena dhaafay waan raacay wuuna diiday inuu ii sheego waxa ka oohiyey waxaan u muujiyey nuglaan iyo naxariis wuxuu bilaabay inuu ii sheego sababta oohintiisa anigoo dhegaysanaya oo dhugsiinaya ma garanaysaan waxa ka oohiyey waxaa ka soo dahay walaalkii cumar ee geen jiray masjidka waana maalin jumco ah wuxuu ka cabsaday inuusan meel ka helin safka hore taasoo aad ugu cuslaatay wuxuu u dhawaaqay cumar wuxuu u dhawaaqay hooyadii laakiin saciidna ma maqlin markaasuu ooyey waxaan eegaya ilmada ka soo qubanaysay indhahiisa aragga la'aa waan kari waayey inaan dhegaysto intii hartay hadalkiisa waan aamusiyey oo idhi ma taas baad la oyday saalimow wuxuu yidhi haa waxaan iska iloobay asxaabtaydii iyo casuumaaddii waxaan idhi saalim ha murugoon ma garanaysa ayaa kuu kaxaynaya masjidka maanta wuxuu yidhi dabcan cumar laakiinse wuu iga soo daahay mar walibana waa iga soo daahaa waxaan idhi maye aniga baa ku kaxaynaya wuu yaabay saalim way la noqon weyday ma rumaysan wuxuu mooday inaan ku dheeldheelayo markaasuu ilmo qubay oo sii ooyey waxaan ku tiray ilmadiisii gacantayda oo soo qabtay gacanta waxaan damcay inaan ku gaarsiiyo gaarigayga masjidka waase iga diiday wuxuu yidhi masjidka waa dhow yahay waxaan doonayaa inaan u socdo si allah igu qoray ajar iyo xasanaad hayo wallahi sidaas buu igu yidhi ma xusuusta goor baa igu dambaysay masjid aan galo iyo goor aan u sujuudo alla weyne jalla wacala laakiinse waa markii igu horraysay aan iska dareema cabsi iyo baqdin iyo qoomamo wixii aan ku gabood falay sanadihii tegey oo idil
waxaa ka buuxay masjidka dad tukanaya, laakiinse waxaan ka helnay meel safka hore. waxaan wada dhegaysanay khudbaddii jumcaha, wuxuuna ku tukaday saalim dhinacayga, maye aniga ayaa ku tukaday dhinaciisa. markii salaaddii la bogay wuxuu saalim iga codsaday musxaf qur'aan. waan la yaabay, oo miyuu akhrin karaa qur-aanka isagoo indhoolo ah? waxaan damcay inaan ka yeelin, laakiinse waan u soo qaaday si aan wax u yeelin dareenkiisa. waxaan siiyey musxafkii. wuxuu iga codsaday inaan u furo musxafka oo u soo saaro suuradda alkahf. waxaan ka dhex raadiyaba musxafka oo doondoona ilaa aan helay. قبل الموت إن كنت تعقل فعم قليل للمقابر تحمل وتمسي رهينا في القبور وتنثني لدى جدث تحت الثرى تتجندل. goormaa aniga igu dambaysay musxaf aan akhriyo? goormaa igu dambaysay musxaf aan kala furo? wuxuu iga qaaday musxafkii oo dhigay hortiisa, wuxuuna bilaabay inuu akhriyo suuradda indhihiisa oo xiran. yaa allah, mise wuxuu xafidsan yahay suuradda alkahf oo dhan, oo ku akhrinayaa cod ciddii dhegaysataa ay jareecyo qabanayso jirkiisa, oo ka ilmeynaysa indhihiisa cod macaan, luuq wanaagsan, qiraa'a heer sare ah oo suuban. markaasaan isku xishooday oo soo qaatay anna musxaf. waxaan ka dareemay ruuxasha xubnaha jirkayga. waan akhriyey musxafkii oo aan akhriyey. waxaan ka baryay allah inuu ii dembi dhaafo oo i hanuuniya. waan iscelin kari waayey. waxaan bilaabay inaan u ooyo sidii ilmo yaroo kale. dadkii qaar waxay weli joogaan masjidka iyagoo tukanaya salaad sunno ah. waan ka xishooday. waxaan isku dayey inaan qariyo oohintayda. waxay isu beddeshay oohintii taah iyo tiiraanyo, murugo iyo ciil. waxaan ku soo baraarugay saalim oo gacmihiisa yar iiga tiraya ilmada. saalim! waan isku duubay. waan eegay. waxaan hoos u idhi, wallee adigu ma indhala'id, ee waa aniga indhoolaha. markii aan iska dabagalay rag faasiqiina aan ilaahay aqoon oo ii wada naar, waxaan u laabanay gurigii. waxay xaaskayga ka walwalsanayd saalim, laakiinse walwalkeedii wuxuu isu beddelay ilmo, farxad iyo reenrayn markii ay ogaatay inaan la soo tukaday saalim. laga bilaabay maalintaasi igama tegin salaad jamaaco. waxaan ka xarigoostay saaxiibadeydii xumaa. waxaan yeeshay saaxiibo wanaagsan aan isku barannay masjidka. waxaan la dhadhamiyey iyaga macaanka iimaanka. waxaan bilaabay inaan xaadiro duruusta cilmiga. waxaan bilaabay inaan ku tukada salaadaha faralka ah jamaaco ahaan masjidka safka hore. waxaan bilaabay inaan tukado sunnooyinka rawaatibta ah 2 ragco oo sunno ah ka hor salaada fajarka, 2 ragco oo sunno ah salaada duhur horteed, iyo 2 ragco oo sunno ah salaada duhur kadib, 2 ragco oo sunno ah salaada maqribka kadib, iyo 2 ragco oo sunno ah salaada cishaha kadib. waxaan joogto u tukan jiray salaada witerka 2 ragcadood oo wada jira oo gaar ah iyo 1 ragcad aan kaga dhiga witer. waxaan bilaabay inaan dhammeeyo akhrinta qur-aanka mar iyo ka badan bishii, ku wardiyo xuska ilaahay. waa intaasoo ilaahay ii dhaafa dadkii aan xaman jiray oo ku jeesjeesi jiray. waxaan bilaabay inaan baari u ahaado waalidkay oo xidhiiriyo qaraabadayda, oo siyaarto culimmada iyo dalabada cilmiga, inaan wanaajiyo dariskay, inaan sooma maalmaha isniinaha iyo khamiisahaba, iyo maalmaha caddaanka ee bilaha islaamka 13, 14 iyo 15 ee bil kasta ee hijriga.